148 arday ayaa maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Nugaal ee ku taala magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. 102 arday oo kamid ah ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda oo kuwii ugu faraha badnaa ayaa waxay dhameysteen waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda Nugaal, waxaana ardaydii guud ahaan ka baxday ay dhameeyeen heerka labaad iyo qaybaha kala duwan ee jaamacaddu ay ka kooban tahay, gaar ahaan qaybta luqadda Carabiga oo iyaguna ay ka baxeen 22 arday. munaasabadan qalin jabinta oo ay ka soo qayb galeen wasiirada Somaliland iyo mas'uuliyiin ka socday jaamacadda Islamic University Uganda oo halkaasi soo gaadhay. Waxa ugu horeyn halkaasi ka hadlay madaxa kulliyadaha ee jaamacadda Nugaal Cabdalle Maxamed Sancad. إن شاء الله جامعة النجار والله سبحان مرحلة صومتي ما أنت بقولي أفتح استدعاء تكلم شمالية ودفعت استدعاء وكقوا كل ذاك الدول هذا دبلوم عالية أو بوست جراتوي هذا ديجري هذا دبلوم واسمه كذا طلع IT يوبسنسكا يلغة عربية جامعة حيكون كورتون برنامج يسجل ديجري guudahaan jaamacadda ardayda laga taabo ardaydu ku dhow oo ka soo baxay iskuulada gobolka ku yaala iyo gobolada dariska nahay. Umar Ahmed Kasulu oo ka socday jaamacadda Islamic University Uganda ayaa waxa uu sheegay sababta ay Laascaanood u yimaadeen iyo xilliga la aasaasay jaamacaddooda. Esteemed President Professor Lafole came to Islamic University in Uganda and paid that a visit and invited us to come and join hands with you and contribute to this kind of program, and we are here for that reason. The Islamic University in Uganda was established began in 1988 with only 2 faculties, and now we have grown with more than 6 faculties. Halkaasi ka hadlay oo ardayda sida weyn ula dardaarmay kana waramay qiimaha waxbarashadu ay leedahay iyo muhiimadda looga baahan yahay ardayda iyo inay dadka deegaanka ku faraxsan yihiin. Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil midna waa idin sheegaya deegaanka uu aqoontiisu ay ka hooseyso waxqabadkiisu uu ka hooseynaya, aqoonta generationka lagu tartamayana waa ka hooseynaya. waxaa runtii aan u baahannahay markaa haddaynu doonayno in deegaankeena uu deegaamada kala dhaafo, haddaynu doonayno in magaceenu magacyada kale ummadda kale uu dhaafo, haddaad doonaysaan inaad noqotaan dad lagu xisaabtamo waa inaad waxbarashada ogaataan. munaasabadaasi ayaa marka ay soo dhammaatay iyadoo halkaasina ay isugu yimaadeen 100 ardayda qalin jabinaysay. waalidiintooda ayaa VOA waxay wax ka weydiisay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal ee gobolka Sool Professor Cabdirasaaq Lafoole. dad kuleeyadood baa inoo abuuran 3 ka bas baynu leenahay, masterkii baynu abuuraynaa, horumarkii baa loo jeestay, aqoontii ayaa loo jeestay. waan hambaliyeynayaa dhalinta maanta ka qalin jabisay kuleedaha kala duwan. waxaan leeyahay hambaliyo idinkuna, waxaan leeyahay mahadsanidin. dareenkayagu iyo dareenka deegaankuba aad buu u sareeyaa.